waayo waxaan salaamayaa dadka islaamka meel kasta jooga ama Soomaalida oo dhanba ka bacdi waxaan doonayaa kaliib yaroo gaaban oo daaroodka ama ogaadeen kaba gooni u si ah inaan ka hadlo ayaan doonayaa niman ogaadeenoo aad moodo inay dhulbahantaba nagaga daran yihiin oo dagaaladii iyagu aad moodo inay si wacan ugu jiraan ama ku boori kaasayaanba nin waan la hadlayaa inkastoo magaciisa garanayn nin aad u caaya Isaaqa kaaynan laba saddex kelmadood yiraahdaa baan doonayaa kelmadaha uu yiraahdo waxa kamida weligood Isaaq nagama libaysan waxa kale uu yiraahdaa magan male waxa kale uu yiraahdaa nasab maaha oo qomolu waxbu sheegaa aynaan garanayno afka soo marin karayn kaaynan qodob yiraahdaa baan doonayaa waxa ugu horeeyo aan u sheegayaa marka ugu horeysa meesha maganta waxa la yiraahdo horta anigu marka hore nin reer hawda baanad oo habar yoonisa markaan sidaa idin suuqin sheego waxa aniga dhalay oo aabahay dhalay Muuse Gumcadle nimanka reer Shilaabaadka baa dhalay ayeeyday aabahay maanigoo yaroo gujira buu dhintay ayeeyday oo Gumcadle bay ahayn jirtay inta kaftanka waan sheegayaa marka ayeeyday baa aniga i korisay ilaa 8 jirkaygiiba iyana dhimatay intaanay dhiman ayaa waxa la bixiyay Gumcadle yaani carruurtoo dhan bay isaga ugu jeceshahay Gumcadle la bixiyay dabeedna anagoo ari la joogno walaashay iga weyn ayay ku heesta la yiraahdo Gumcadle Ibraahin iyo gacan weyna daarood ayay ku heestay dabeedna in aniga ii jeedabaan moodo waan dagaalamay dhulka iyagu dhagax male waa hawdo xaaba taalo xaabadii baan ku tuurtuuray inantii waa naloo garqaaday waxna lagu heshiisiyay inantaasi gacan weyne iyo Gumcadle iyo Ibraahin midna soo qaadin heesta inaanay soo qaadin dabadoodii bay su'aalay waxay ogaadeen hadii la caado ka warrano waxaan ogaadeen aniga maxay ka galay Gumcadle Ibraahin iyo gacan weyne daarood inta inay soo qaado walaashay doonay aanay ii jeedaa waxna lagu heshiisiyay inaanay heesta dib ugu noqon marka hore reerka aanu isnahay aanu isdhalay ayay ahaayeen marka ninkaasi wuxuu yiri marka hore magan male ii door ayuu ku celceliyay waa nin qoorta sidaa u taago aad moodo naasimadii ogaadeen lagu sheegi jiray inay isaga isugu timi kolka ninka waxaan u sheegayaa maalmaha kamida magaalada Burco ayaa niman reer Caynaashe iyo habar yoonista oo fara badan oo isku jira oo ilaa 6-7 ayaa yiri baabuurta Burco ka baxaysa ogaadeen leeyay annaga kireynayna oo iyaguba way kireeyaan wardheer iyo danood iyo markaan dhulka joogno iyaga kireeya kireyn maysaane iyaga kireynaya baan niri waanu isu hub guranay anigu rag badan baanu isugu nimo reer Caynaashe suguliye bahabale waxaan anigu ku tiraabay in la laayo nimanka aynu layno raggii kale 4 nin bay raacay intii kale waxay yiraahdeen layn mayna marka hore waxaan oranaynaa nimankaasi waa madax banaan yihiin lama hadli karo sidii bay ku dhamaatay ogaadeen isaga magaaladan ku kiraysta baaburada waxay doonaan bay ka sameeyaan annagay marka hore magan noo ahaayeen hadaanu Caynaashanay imika sadeen nagaba badan magaalada cidna magan uma aha cidina lama hadasho waa nimanka reer Burco ee bacanu jiray ariga dira ee bagaaj wax walba sameeya cidina lama hadasho sidaasaanu maganta u naqaana reer bayga soo horjeeda aniga reer Cabdillah aan guri noo dhaxayn waxaan ku dhaaranayaa hadii lala hadlay iska daa Isaaq oo dhan hadii la mariyo inaan reerka la hadli karin waa la hubaa maganta sidaasaan u naqaana ogaadeen waa kala jaad reerka la yiraahdo ee aniga ii bahayayade la yiraahdo qabyaalad ku hadli maayo ee la yiraahdo makaahil maganta way yaqaaneen lagalamana hoos baxo waxa jiray reer ogaadeen oo idinba iska garanaysaan oo yiraahdo xeer daarood baa la yiraahdaa reerka iyaga 3 nin oo nin walba sodogii 60 halaad ka qaadatay oo la dhax xeer daarood ayaan hayaa hadii waliba tiraahdaan soo sheeg 3 nin 3daba waan sheegaya taasina taa weeyo maganta annaga idinka naqaana maganta annaga nin Isaaqa magantii laguma agdilo ogaadeen si xeerkaas abu kaleeyay badankiisu reeraaqa isku ogaadeen maaha ogaadeen ka qaar baa xeerkaasi u yaala xeer daarood 60 halaad bay kala qaataan taasina taa weeye gaala jacayl iyo waxbu ninkaas ku hadlaa gaalada idinka naga jecel waxaan ku garanayaa inaan naga jeceshin wana cadeynayaa nin idinka ahoo madaxaha ayaa uu dhaanteeyay wuxuu yiri inta ee baabuuray arba xaalay salaasay etiyaanu jeclaa ilaa nabi maxamed buu ka jeclaaday calayhi salaatu wasalaam
ayuu ka jeclaaday itiyo oo islaantii xayla salaasa habartii xayla salaasa islaamad maahe iyo xayla salaas heestaas u tiriyey sidaa inaa gaalada u jeceshin baan idin sheegayaa intaa laasacaanood iyo ka hadlaysaan dhul Soomaaliyeed dhul baanta cidina dhulkeeda ka qaadi mayso iyagu baale hadday Soomaaliland raacaan iyo hadday Soomaaliweyn raacaan iyo hadday Puntland raacaan tay raacaan ba aakhirka iyagu baale dhulka iyaga leh dhul Soomaali kala qaadaysa maaha wixii kala qaadana waaba Soomaali ogaadina waxaan idin sheegayaa Soomaali galbeed oo ilaa iyo dhulka Ciisaha gobolada Ciisu wax ku leeyahay kilka shanaad cid waliba ku leeday aanu ku leenahay ogaadeen ba u bixiseen 10 kilo 20 kilomitir baa loo soo jiraa jigjiga maad xoreysaan taa inta ku dhaantaynaysaan laasacaanood ama hadal haysaan war amxaar xuno balag leba hablihiin ma hablihiin waa hablihiin oo dhan ayaa kufsanaya wuxuu doona ku sameynaya kama hadashaan wax ka hadlaya arki mayno ka qoomaluud buu xataa isaa ku sheegay ninkaan sheegayo afkaan soo maristiisaaba xun miyaanu ninku caruur lahayn miyaanu habla lahayn miyaanu inama lahayn miyaanu dumarkiisu maqlayn waar soo qaadistiisaaba nin u tagay ayaa soo qaadistiisaaba fool xun waxaan sheegayaa ogaadeenka war colaada ka daaya ka dhex abuureysaan dhul bahante iyo haddaad dhiiran tahay waxa bannaan buu dhinaca waaxlay labadiisu gabiyey haddaad dhiiran tahay waxa bannaan dhinaca waaxlay waxaan idin sheegayaa ka daayata war Soomaalida isu jiida ceebta ku hadlaysaan dhulkeenni baa xoreyn u baahan waa taa jigjigiya afarta boonujaaba laynaga soo galay war xornimo halkaas ay nooga baahan haddaynu Soomaali nahay ama ogaadeen batiin dhulkii oo dhan jigjiga iyo dhulkana waxa ku leedin hadda ogaadeentiin de ogaadeen ka sheekin iyo ku jiraan ugu ma sheegin laakiin de qarbi taare iyo meesha la yiraahdo dhagax buur iyo wardheer iyo inaha saaleedin inaha kale waa Soomaali kale hatta daarood badan baa de jigjiga idinkaga badan haddana dhulkii oo dhan ogaadeen iyo bixiseen ogaadeenkina waa ka halka maraya laasacaanood iyo isaaq iyo dhul bahantoon hadal haya dhaanta idinka soo hadhay oo ku dhaantanayso heleele goojaade qabsanay waa qabsanay goojaade waxaasaa ku hadlaysaa war aniga waxay la tahay inay taasi aad iyo aad foolxumo u tahay markaan taa ka baxo ninka yidhi weligaya maanu kala libaysan isaaq waa layna kala ogyahay inaynu kala libaysanno tirin maayaan ugu inta jeer ahayd laakiin waan guud maraya la faruug baynu iskala soo yaacnay ilaa iyo wardheer intaa weynu isdilayni boqolkiiba 80 libinta anagu baa lahayn weligiin maydaan libaysan oran maayo laakiin de saayidkaanu lahayn haddii aad dayn weydaan waxyaa meelaha aynu isla soo maray iyo libinaa sidaynu u kala helay waan soo sheegi doonaa ninkii la oran jiray Cali Dhuux wuu gabiyey doqonkii ogaadeen dawlad laga qaadiyo loo diidanoodii hadday degi lahay ciid Cali Dhuux intaasuu yidhi gabaygiisu wuu dheeraa in yar baan ka soo qaadanayaa qamaan bulxan baa u jawaabay idinkuba darkii caynabaa deris ku taalaaneed darkii caynabaa deris ku taalaaneed idinba doorkiin lalaa dubcadii hagare ama dagaalama doorkiin lalaa dubcadii hagare ama ina daaya oo wada qabnaa daawashiiceeb anigu maan odhan qamaan bulxaniya baa yidhi iyo Cali Dhuux meelahaasaan idin gurmadayaa inaanu anagu sidaa ahayn halkaana intaasaan ku dhaafayaa اللهم صل على محمد عبد الله حسن وآدي بو أمانتان نكاسان آدو نبعي جامع قلت سوا داما ونوينو يسوق وحيالو يرحيريا لكن جامع قلت وحنو شيغيا أوبوي هي أو كدا اسكو دير كددك كدا تيرين تكدا البهان تيرين يسو عيبتا عاد مر walba ku caadaysa isaaqna iska daa nuweyn baa tahay inama yaryaro mid yaro sida habla u qoso ya hadiya jeer hadalkana ka qabta sorry waa ceeb weeye xaal baan taa ka bixiyay taana waxaan leeyahay jaamac galadow dadka isu jiid dad isaaqiyo daarood waa isku mid waa isdhaleen waa uliya diirkeed meel la gees kuma wada noolo reerna gees kuma wada noolo reerna fulo kuma wada noola laakiin haddana hibada waa la kala leeyahay waa la kala qaadaa taasina taa weeye ina Cabdullaahi Xasan baa ku dhageystay adigoo ka hadlaya
oo nin marxuuma baa nin caayay oo mooji xinifiya nin baad sheegayso waan daawaday habeen walba waan daawadaa nin weyn oo odaya baan idhaa ahado waxaan israahdaa war ilaa suldaan hadla ama nin weyn oo oday halla hadlin kiliibada laakiin dee kiliibadii baydaan joojinaynba يعني واقي عند الله وكبر يبادي الله يريرون باون يسوق سليون وواحد دونتان بكو هادلاي واحد تدينا عبد الله حسن حن نكادين تيبو باقي بالوايا هيا وحا الله وحا اللي بينا شيغيسان iyo in عبد الله حسن baa dalka xoreeyay ashubaysaan بالوايا هيا uu dhintay oo libintiisina waad sheegaysaa dhaliishiisina yaan la sheegin baad leeday bal iswaafajiyo inta dee aan loo dhaafayn in عبد الله حسن aduguna aanad amaantiisa u dhaafayn dee bal adigu iswaafaji ila waxaad doonaysaa inaad wax alla waxa ammaan u leeyana sheegto waxa ceeb ama dhibo u leeyana aan la sheegin dhibo badan buu sheekhu lahaa anigu caay maayo waan weyn oo dhinto ilaahay naxariistaan leeyahay laakiin in yar baan kaaga sheegayaa inkii suldaan nuur loo oran jiray habar yuunista suldaankeeda ahaa ayuu yiri hilaaca baxaya meel muhayaalo laan dheer weeye waa dhulka habar yuunista dabadeed sheeg buu yiri ka waran geela hadaynu ku baxno sayidii waxa ka horeeyay 60 nin oo dableeya 60 kaan inay dableeyaba yeynu isku burburayna inaga daabu yiri reerkoodu u hiilinayaa buu 270 qoyskiisa inan baa ka baxsaday intii kaleba wuu laayay waliba isaga xorfad buu ku riday xorfad ayuu ku riday bal intuu ku dhimanayaa baan eegayaa buu yiri markuu bil noolaa ayuu yiri baara ninka waxbuu haystaa waxba ku siihe waa la baaray cadaygi baa laga tuuray uu dhintay waxba si sheeg mayno waxyaalaha in عبد الله حسن umada ku sameeyay waxba ku tiigaali mayno laakiin de jaamaca uu ka daa marxuumka yaan nin dhintay haraga lagala bixin iyo inaanad amaantiisa mooye wax kale ba waliga ku jirin iyo daraawiish baa leeyahay de labada balsaad soo waafajinaysa adaa yaqaan namanu xoreyn waxa tiraahdaa in عبد الله حسن baydin xoreeyay isaaq muu xoreyn annaga is xoreynay waxaan isku xoreynay ingiriisku markuu yimi saddex qodob haddaad ingiriis oo yeelaysa saddex qodob haddaad yeelayso waad soo degi kartaa baa la dalka sheega buu yiri inaana gaal ku dhalin oo ilmo ingiriis ku dhalin Soomaaliland waa laga qoray inaanad dadka dhex deginna waa laga qoray markaanu doono inaad naga baxdana waa laga qoray saddex harag waraaqo way jeexjeexmayaan saddex harag baa laga qoray harag waxa la siiyay garxaji siiyo arab haragna waxa la siiyay habar jecelo haragna waxa la siiyay awal iyo ayuu annaga horta iska xoreynay gaaladana inaanaan jeclayn sidaas yaa cadaynaysa waxa weeye waanu is xoreynay saddexdii xaalaanu ka qorannay nin walba taariikhda qoro berbera laga qoray saddexdii harag baanay sidaasay ahaayeen intaana waxaan sheegayaa inaanu annagu dalka iyaga xoreysanay intaa markaan dhaafo ee aan ku dhaafo reer awowgay haddii aan de wax weyn yeelayna kulli waxaan ka bixinayaa iyadana apologies baan ka bixinayaa laakiin de abtii awowyaal ka daaya ololaha faraha badan iyo dhaantada waxa la moodo ogaadeen in dhaanta ka soo hadhay dhulbahantana gabay ka soo hadhay ninka la yiraahdo ma jeerteen ayaa harti ay ka soo hadhay ma jeerteenka iyaga kelmad quraan oranaya oo kelmadina عبد الله حسن ku yiri baan u soo qaadanaya in عبد الله حسن wuxuu ma jeerteen ku yiri ninkii habar ma jeerteen ayaa halama shnaagaale waayahay dumar buu ku mataalay mar kalena qoys buu la sii hadlay ma jeerteen wuxuu yiri suwaaq roomba waa niman markay socoto xaafun taana intaasaan leeyahay dhulbahantana waxaan leeyahay dhulbahanta mid yaro quraan oranaya maxaabiista haysaan laaya ilaahay waxaan ka rajeenayaa inaydan waxba ka sii deyn wadaad cabdi xirsi la yiraahdo oo aan aad u dhageysto oo aan iskaba raacsanaan jiray show fiqi turkish kama janna taga weeye wuxuu yiri laaya haday idinku soo duulaan laaya buu yiri eekada laaya toos ma oran wuxuu yiri hadaa ku soo duushaan maxaabiistiina layn doonaan laaya weeye waxa weeye dhulbahantow teelaha u dhiganina maxaabiista laaya yaana tiraduna idinka gadbanin allaysaan dadka loo jeeda garxajiskan goonida iska dhigayo ama hadaa la idmayo oranaya annaga daarood waa noogol warina ma ogolo mas madaxa laga dilaa aakhirka ninka lagu soo socdaa waa inaga waxaan leeyahay inamada buurta waxaan leeyahay war dadku hadduu isaqbali waayo madaxdiisa aqbali waayo ceeb weeye dadku hadduu dad siman noqdo guddidiina iyo dadka buurta idinla joogo ee idinku duldib jiray waxaan leeyahay waar aqbala roon iyo reer waxa idinku taliyaan xataa khalad haday idinku taliyaan
war haddii laysaqbali waayo oo nin weyn iyo nin yarba daroo la noqdo oo nin jabhadoo fudud iyo nin jabhadoo wacan iyo nin militariya iyo odayaashii iyo guurtidii wixiiba isku tala noqdaana isku mulaaqmaan dhibteeda weeye waxaan leeyahay maadeerayaal